conversation wuxuu noqonayaa wada hadal. Lesson that 2 wuxuu noqonayaa cashirka 32. Lesson that 2 cashirka 32. Standing your ground. Standing your ground. Ereyga standing your ground wuxuu noqonayaa qof oo inuu istaagnaado mowqifkiisa ama inuu ku adkaysto aragtidiisa. Yani standing your ground ayna adkaysi aad ku adkaysanaysid ama taagnaasho aad taagnaanaysid aragtidaada. Yani aragtidaada ku adkaysanaysaa mowqifkaada ku adkaysanaysaa mowqifkaada ay taagan tahay. And demanding respect. Demanding respect maxaa dalbasho aad dalbanaysid in lagu xushmeeyo. Demanding respect waxay noqonaysaa dalbasho aad dalbanaysid in lagu xushmeeyo waxay noqonaysaa ayadana demanding respect. So standing your ground waxa ku adkaysanaysaa yani aragtidaada mowqifkaada. Demanding respect waxa dalbanaysaa in lagu xushmeeyo. هذا waxyaabo noocaas ayuu ku saabsan yahay wada hadalka ama conversationka hoos ku xisan. Okay, Anas ayaa qormay. Anas wuxuu leeyahay I anigu cannot maba tolerate u dulqaadan karo. I cannot tolerate maba u dulqaadan karo seeing you inaan ku arko. See I add ing ayaa lagu daray. So seeing you ay noqonaysaa seeing you inaan ku arko. Stroll inaad ku talaabaysid ku socotid ku lalaafiyotid in front of me aniga horteyda. Shaking adoo ruuxaayo. Shaking ruuxid aad ruuxaysid your body jirkaaga. qof dumar ayuu la hadlayaa markaas kale. So muxuu yahay I cannot tolerate uma dulqaadan karo seeing you inaan ku arko. Stroll in aad ku talaabaysid ku socdaashid ku lalaafiyotid in front of me horteyda. Shaking adoo ruuxaayo your body jirkaaga. Okay, ayni waxay leedahay macnaha waxa shaqeysanaya Anas iyo ayni ay shaqeysanaya. Ayni waxay leedahay stop George wailing khaylada. Stop George wailing khaylada George. Oo hadii kaleeto you will die waa dhiman doontaa. You adigu will die waa dhiman doontaa before your time waqtigaada ka hor. Before your time waqtigaada yani waqtigaada la gaarina dhimanaysaa. I don't know sida loo sameyn karo lama garanayo laakiin wabsi baa la baraa because hot and horrifying conversation ayuu cashirkaan la macaa oo limit yahay. Okay, Anas wuxuu leeyahay please fadlan speak to me ila hadal with respect si oo xushmad ay ku jirto. Please fadlan speak to me ila hadal with respect si xushmad ay ku jirto ila hadal. Before ka hore it is too late intay goor tahay. Before it is too late intay goor tahay si xushmad ay ku jirto ila hadal ayuu leeyahay. Okay, gabadhi maxay leedahay ayni ahayd waxay dhahday I anigu have no more respect oo xushmadeey ama xushmad uma hay. I have no respect xushmad uma hay for kids caruurta. Who kuwaasoo I anigu have no respect xushmad uma hay for kids caruurta. Who kuwaasoo cry u ooyo like sida donkeys dameerada. Like donkeys sida dameerada oo kale. meeshan aad baa u kululaysay waxay dhahday I anigu have no respect xushmad uma hay for kids. Respect for xushmad uma hay kids caruurta. Who kuwaasoo cry u ooynayo ama u ooyo like donkeys sida dameerada oo kale u ooyo. Okay, Anas wuxuu leeyahay don't talk to me ha ila hadlin like that sidaas oo kale. Don't talk to me ha ila hadlin like that sidaas oo kale. Behave yourself hadii lagu dhaho maxaa wax isku fal ay noqon kartaa ama dabeecadda toos ay noqon kartaa ama dhaqankaaga hagaaji ay noqon kartaa. Yani waxa sameynayso waa qalad ay waraa istoos ama hagaaji oo kale noqon kartaa. So maxaa la and don't talk to me like that sidaas oo kale ha ila hadlin. Behave yourself hagaaji waraa istoos ama wax isku fal. Okay, ayni maxay leedahay I am anigu about waxaan ku dhawaay to vomit inaan mataqo. I am about to vomit waxaan ku dhawaay qarka u saarnay inaan mataqo. Yani meeshan about waxay noqon kartaa ku saabsan oo kale laakiin hadda marka loo adeegsanayo inaan mataqo ku dhawo kale marka dhig I am about to die waxa u dhawaay inaan inta dhig kartaa. I am about to cry waxaan ku dhawaay inaan ooyo. So I am about to vomit maxay marka waxaan ku dhawaay inaan mataqo. Vomit mataq. Cover your smelly mouth. Cover double ama naga xir your smelly mouth afkaada urka badan yani smelly waa wax aad u uraayo. So smelly mouth afkaada uraayo naga xir ayuu leeyahay. Okay, Anas muxuu dhahay marka I am anigu still welito respecting you waan ku xushmadeynayaa. I am anigu still welito respect
waan ku xishmadeynayaa. If haddii you waa ahaan lahayd, if haddii you adiga waa ahaan lahayd a man nin, I anigu will face you waxaan ku wajahi lahaa probably si caadi aan ku wajahi lahaa. Probably maxaa waa si aan gambishin lahayn, si toos ah yani sida qofka oo nin raga u wajihi lahaa oo kaleeto ayaan ku wajihi lahaa. Okay, I am anigu still weli to respecting you waan ku xishmadeynayaa. If haddii you waa aad adigu ahaan lahayd a man nin, I will face you waxaan ku wajihi lahaa probably si toos ah si caadi ayaan ku wajihi lahaa. Okay, ayni maxay leedahay if haddii you think au malaynaysid I am anigu weak inaan daciif ahay ama aan tabar lahaynba, come kale and try me igu day. Waxay leedahay if haddii you think you adiga think au malaynaysid I am anigu weak inaan caata ahay, tabar aanan lahayn oo daciif aan ahay, come kale and try me igu day ay leedahay. Come kale and try me igu day ay leedahay.